jirtay markaynu eegno quraanka iyo qisaskiisa nabi muuse hooyadii waxay dhashay nabi muuse oo yar iyadoo waxay islaahay fircoon si aad uga qaristo malaa inaad haysataaba wanaagsan ilmaha yar oo meesha ku ilaashato de fircoon ka qariso sida uu qarinaysa haday saa u dareentay sida uu qarinaysa inaanay sida ahayn buu ilaahay doonay ilmahan sidoo ku badbaadayo in la galiyo badda in lagu rido gacanta fircoon la galiyo waa laba meelood iyadoo ay u malaynayso inuu ilmuhu ku halaagsamay bal ilmaha yara dhasho lagu ri badda ku tuureen waliba loo sii shoogo leeyid baduna fircoon bay u sii dhiibaysa yaakhudhu aduw li adaw alla ya adaw ilmahan u leeyahay qaadi doona ruux dumar oo musho ilmaheedii inta loogu sheegay maxaad u malaynaysa karaahiyada ka muuqanaysa way kaadat la tubdi bihi inay sheegtaaba bay u dhawaatayba oo jira waa ilmahayga ay daay damxayna ogay gacantiisa ilaahay ku koriyay kii uu milkigiisa meesha ka saarayo sabab u noqonay oo fircoon ah ayaa ilaahay gacantiisa ku koriyay subhanahu wa ta'ala markaas iyadiina uu ku soo celiyay shakhsiinays markaas uu waliba mushahar ku siiyay marka badbaadadu wixii ay karaahiyeysanayay badbaadada ku jirta soo dhaaf nabi muuse alayhi salaam waxa israaceen nabigi khadir loo dhanay nabina waa la yiraahdaa khadir العبد الصالح نوره لكن علماء waxay u badan nabi aha jumhuurtu way israaceen rixlatu ilmi buu la galay inuu cilmiga ka faa'iideysto laakiin markay xoogaa talaaba qaadeenba Muuse way isku dhaceen Muuse waa kii ku xayraamay marka hore uu joojiyay mar labaad buu joojiyay mar saddexaad buu ku xayraamay waa kuwii kala tagay aakhirkii laqad jiita shay'an imran laqad jiita shay'an nukran وحلا خضراء وحلا تيمي وحلا أتكيسن كرين وقفة وحوين بالله تيمي دول الديدو لكن وحي وديد يا أردن مركو خضروا معانا يوشاقوا أفسري محاي نقطة وحو كفر حوش على استيبا إن الله سيوذي لها عشرك ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وحي التفسير كيس وحي الحميل ويدي تفسير كيس وكايمك معانا ديم سيسو أصحابتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قال انتي بدر وحلو شيء هل كنا إنه سفر صعدة صهيب بدن سيدا أبو بكر أبو صفر